Dunidan casriga ah ee dadka ku nool haatan ay ku haminayaan inay dalxiis ku tagaan hawada sare dhawaana la filayo in arrintaasi la bilaabo sidoo kalena ay sahlan tahay in qofka meesha uu doono uu dalxiis tagi karo booqan kara goobaha taariikhiga ayaa haddana waxaa jira goobo dadka bini'aadamka ka caagan in ay booqdaan oo aan war badan laga haynin. Jasiiradda Masaska ee dalka Brazil. Jasiiradda Ilha de Comenda Grande ee dalka Brazil waxa ay ka mid tahay goobaha caanka ah ee aan dadka loo ogolayn inay booqdaan. Waa goob halis ah oo adag tahay in qofkii tagaa uu soo noqdaa isaga oo bad qaba. Jasiiraddan ayaa waxaa ku nool masaska ugu badan adduunka inta la og yahay, waxaana lagu qiyaasaa in mitir walba oo dhulka jasiiraddaasi uu jiifo mas. Waxaana la sheegay inay yihiin masas marka uu qofka arko argagax gelin kara, waxyeeleyn kara dadka bani'aadamka. Masaska ku nool jasiiradda Ilha waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin masaska adduunka kuwooda ugu khatarta badan, waxaana ka mid ah maska nooca casaanka ah ee candhuufta tuura. Dowladda Brazil ayaa xirtay jasiiraddaasi kana mamnuucday in dadka ay booqdaan. Inta la og yahay, dowladda dalkaasi ayaa dadka cilmi baarista sameeya oo keliya u ogolaatay inay booqdaan jasiiraddaasi, kuwaasi oo iyagana la duldhigay shuruudo dhowr ah oo ay ka mid tahay inay la socdaan dhaqaatiir daweyn kara haddii ay wax noqdaan. Khubaro arrimaha deegaanka oo ka socday jaamacadaha Sydney Australia iyo Silmameria ayaa sheegay in jasiiraddani ay samaysan tahay 11,000 oo sano ka hor, taasina ay keentay in duurjoog u badan masas ay ku tartamaan jasiiradda hoodka ah ee dhanka xeebta kaga beegan magaalada São Paulo ee dalka Brazil. Keydka qarsoon ee kaniisadda Vatican-ka. Keydka qarsoon ee kaniisadda Vatican-ka ee dalka Talyaaniga waa mid aan loo ogolayn in dadku ay booqdaan. Keydkan oo sida la sheegay ku dhex yaalo dhismo weyn ayaa la aaminsan yahay in halkaasi ay ku keydsan yihiin dukumeentiyo muhiim ah oo taariikhi ah. Waxyaabaha la sheegay in halkaasi ay ku keydsan yihiin waxaa ka mid ah waraaqo ay isweydaarsan jireen Vatican-ka iyo dadkii caanka ah ee soo maray dunida, kuwaasi oo ay ka mid yihiin mu'allifkii caanka ah ee Wolfgang Amadeus Mozart, boqoradii koowaad ee Ingiriiska Adolf Hitler iyo dad kale oo taariikh dheer ku leh dunida. Xogtaasi oo ah mid u qaas ah baadariga madhabka Katoliga ayaa ah mid ka caagan dadka adduunka oo aysan arki karin marka ay soo booqanayaan goobtaas. Cilmi baarayaasha arrimaha sayniska ayaa la sheegay inay yihiin dadka kaliya ee dalban kara ogolaansho ay ku galaan goobtaasi. Haddiise loo ogolaado, waxa ay ku dhaqmayaan shuruuc adag oo ay ka mid tahay in aynan wax waraaqa ah kala soo bixi karin keydka qarsoon. Waxaa kale oo jira shuruuc dhigaysa in iyaga xitaa aanan loo ogolayn inay arkaan waxyaabaha qaar. Keydka qarsoon ee Vatican-ka ayaa sidoo kale ah meel lagu keediyo xog badan oo la xiriirta madhabka Katoliga. Waxaa la sheegay inay ku keydsan tahay taariikh gaaraysa ilaa iyo qarnigii 8. Inta badan macluumaadkan ayaa ku keydsan baqaaro dhulka hoostiisa ah, waxayna ku fadhiyaan dhul gaaraya 85 kiiloomitir. Xarunta lagu keediyo miraha dalagyada ku beeran adduunka. Waa sanduuq aad u weyn oo u samaysan sida qaboojiyaha laguna keediyo miraha dalagyada adduunka laga beero. Sanduuqan oo ku yaala gudaha dalka Norway ayaa waxaa hirgelisay dowladda dalkaasi, waana goob lagu ilaaliyo miraha si haddii ay masiibo ama aafo kale dhacdo dunida loo helo keyd miro oo loo laaban karo. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain ayaa ku soo warramay in sanduuqani oo ku yaala jasiiradda Spitsbergen ay ku kaydsan yihiin milyan baaldi oo midkiiba ay ku jiraan 100 milyan oo ah miro kala duwan, kuwaasi oo aad muhiim ugu ah dunida. Waxaana mashruucani la hirgeliyay sanadkii 2008. Waxaa laga dhisay qalab ay adag tahay inay biyo ama waxyaabo kale dibadda uga yimaadaan, kadibna ay waxyeeleeyaan. Xarunta looma ogola dadku inay booqdaan, waxaana sababta lagu sheegay sidii loogu baaqsan lahaa waxyeelo soo gaari karta mirahaas. Sanduuqan waxaa ku dhammaan miraha dalagyada laga beero caalamka, haddii ay ahaan lahaayeen khudaar, cuntada iyo dhammaan waxyaabaha laga isticmaalo adduunka. Sanduuqan ayaa loo nashqadeeyay qaab uusan u dumin, adkaysigiisana uu gaarayo 200 oo sano. Waxa uuna iska celin karaa wax walba oo ay ka mid yihiin duufaanta, qaraxyada, dhulgariirka iyo wixii la mid ah.
miraha halkaasi lagu keediya ayaa laga soo ururiyay dhammaan dalalka caalamka, waxaana dalalka halkaasi wax ku keedsaday ka mid ah Kuuriyada Waqooyi ah inta badan wax xiriir ah la lahayn caalamka intiisa kale marka laga reebo dalal dhowr ah oo Shiinaha ka mid yahay. 4 jasiiradda xabaasha ee dalka Talyaaniga. Bavaglia waa jasiirad yar oo ku taala dalka Talyaaniga una dhaxaysa xeebaha magaalooyinka Venice iyo Lido. Goobtan waxay hore u ahayd goob lagu karantiilo dadka qaba cudurka bubonic ee ka dhashay bakteeriyada, waxaana mar la sheegay in lagu karantiilay 160,000 oo qof oo qabay cudurkaasi, kuwaasi oo markii dambe qaar badan oo ka mid ah ku dhintay jasiiradaas. Wararka qaar waxay sheegayaan in 50% carrada dhulka jasiiradaasi ay tahay haraadigii jirka bini'aadamka, maadaama sida la sheegay meydka dadkii u dhintay cudurkaasi ay ku qurmeen dhulka. Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa Britain ayaa ku soo waramay in jasiiradan muddo hadda laga joogo 70 sano ay ahayd goob gumeystihii Talyaaniga u ahayd xarun lagu hayo dadka qaba xanuunka dhimirka, waxayna taasi keentay in dowladda Talyaaniga ee markii dambe xirto jasiiradda Bavaglia kana mamnuucdo in dadka ay booqdaan. 5. Qolka 39aad ee Kuuriyada Waqooyi. dalka Kuuriyada Waqooyi oo lagu tilmaamay inuu yahay dal go'doon ah kana go'an dunida inteeda kale ayaa waxaa adag in wax badan laga ogaado waxa ka dhex socda. Dalkan oo sidiisaba ay adag tahay in wax laga ogaado madaxda dalkaasi iyo waxyaabaha ay qabtaan ayaa qol lagu magacaabo Room 39 waxaa la sheegay inuu yahay qol aanan cidna loo ogolayn inay gudaha u soo gasho. Wax badan lagama oga qolkan oo ku yaala magaalada Pyongyang, hase yeeshee dadka aqoon u leh ama la soo shaqeeyay xukuumadda dalka waxay sheegeen in qolkaasi uu yahay goob ay si gaar ah ugu kulmaan hogaamiyaasha wadankaasi iyo saraakiisha militariga. Ray John oo ah sargaal hore ugu tirsanaa xukuumadda Pyongyang ayaa u waramay telefishinka CNN ee Mareykanka ayaa sheegay in waxyaabo kale ee lagu qabto qolka 39aad uu muddo ka soo shaqeeyay ay tahay meel lacagta loogu geeyo saraakiisha sarsare ee dalkaasi. Dowladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay in qolka 39 uu yahay mid lagu qabto howlo sharci darro ah. Aaga 51aad ee dalka Mareykanka. Aaga 51aad ee ciidamada cirka ee dalka Mareykanka waa goob caan ka ah dalkaasi oo loo yaqaano Area 51. Hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa markii ugu horeysay qirtay jiritaanka goobtaasi sanadkii 2013. Inta badan goobtaasi kama soo muuqato khariirada goobaha dalka Mareykanka waxaana la aaminsan yahay in sidaasi loo sameeyay sababo amni dartood. Goobtan oo qiyaastii 170 kiiloomitir u jirta magaalada Las Vegas ayaa sanadii 1958 waxay hay'adda atomikada Mareykanka ka saartay goobaha dadweynaha ay tagi karaan. Waxaa gidaarka goobtaasi ku hareeraysan ciidamo hubeysan, sidoo kale waxaa adag in diyaaradaha ay dul maraan goobtaasi iyagoo aan wax fasaxa haysanin. Way adag tahay in la ogaado waxa ka dhex socda xaruntaasi, dadkuna marnaba looma ogola inay gudaha u galaan oo waxaa gidaarada ku dhagan koronto dili karta qofkii isku dayaa inuu gudaha u galo. Xaruntan waxay u dhowdahay saldhig military ee gobolka Nevada oo ah meel lagu tijaabiyay hubka nukleerka ee Mareykanka intii u dhaxaysay sanadihii 1950 ilaa 1990. Waxay ku fadhidaa dhul dhan 3 milyan oo hektar. Waxay dadka badan rumaysan yihiin in dowladda Mareykanka ay xeradan ku hayso macluumaad ku saabsan suxuunta duusha oo la rumaysan yahay inay kaxeeyaan noolayaal qalaad oo cirka ka yimid, sidoo kalena loo yaqaano aliens. Waana waxyaabaha ay dadka aaminsan yihiin in qaar ka mid ah noolahaasi ay dowladda Mareykanka qabatay kuna hayso xarunta Area 51 ee Nevada. Haddaba jasiiradda dadka go'doonsan ee Hindiya. Jasiiradda Sentinel ee ku taala waqooyi dalka Hindiya waa hoyga dadka asal ahaan loogu yimid dalkaasi, kuwaasi oo qarniyo ku noolaa halkaasi. Dadkani ma ahan dad doonaya inay la macaamilaan dadka kale ee adduunka. Mar walbana waxaa la sheegay inay dagaal kala hortagaan qof walba oo isku daya inuu soo galo jasiiraddaas. Dowladda Hindiya ayaa joojisay dhammaan isku day walba oo loogu tagi karo dadkaasi kadib markii ay ogaatay khatar dadka ka soo gaari karta, waxaana dowladda hagaajisay xayndaab aanan loo dhaafi karin dadkaasi. Sanadii 2006 kulmaysato isku dayay inuu gudaha u galo jasiiraddaasi ayaa la dilay. Sidoo kale dalxiisa u dhashay Mareykanka oo isku dayay inuu tago jasiiraddaasi ayay dileen dadkii ku noolaa goobtaasi. Dad badan oo isku dayay inay booqdaan goobtaasi ayaa waxay iska hor imaad kala kulmeen dadkaasi, lamana oga sida ay ku
nool yihiin iyo dabeecadahooda. Intaasi ayaan kusoo koobayaa 7 goobood aan dadka loo ogoleen inay booqdaan ayna ugu wacan tahay khatar amni, arrimo xasaasi, dano guud iyo waxyaabo kale. Haddii aad ka heshay sheekooyinkan iyo sheekooyinka kale ku jira janaalka, fadlan la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.